xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa munaasabad si weyn loo soo agaasimay qabtay siyaasiyiin xildhibaano iyo taageerayaal fara badan oo ka soo jeeda gobolka Hawd. munaasabadan ay ka soo qayb galeen hoggaanka ugu sareeya xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay xildhibaan Cabdiqaadir Jirde oo hogaaminayay taageerayaasha ku soo biiray xisbigaasi, waxaana ka mid ah hadalladii sida soo ajiibteen soo dhaweynta noo samaysay waxa weeyeen dadkan annaga iyo cabdi hayba iyo mataan iyo Soomaaliya abaabulin dadku iyagaana keenay halkan iyagaana keenay abaabul gudiya dabad ka socday ul iyo canaan ay halkan lagu keenay walaal war ka kacab meesha waqti la gabadha lama joogay marka horta waxaan u mahadnaqayaa dadkii xisbiga nooga soo horeeyay ee halwadeennada ahaa ee dadaalka ka galay inaanu xisbiga si toos ah u soo hawshiisa u qabanno. waxaan u mahadnaqayaa guddigii 15 ka ahayd ee 5 maalmood ka shaqaynaysay abaabulka ee hablayeen ma lahayd ee xaafadda. sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay taageerayaal iyo mas'uuliyaad fara badan. gabagabadina waxa soo afmeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan Cirro, isagoo arintani ka hadlayna wuxuu sidaataan barnaamijka siyaasiga ah dadku gudaha iyo dibadda barnaamijkaas way soo dhaweeyeen. barnaamijka waxa saldhig u ah in la dhiso dal taladiisa iyo khayraadkiisa aynu u simanahay. soo sidaas ma aha barnaamijkeenu oo helay ictiraaf caalami ah kuna dhisan cadaalad. waxaynu rabnaa cadaalad gaadha guri kasta, muwaadin kastana gaadha. anna waxaan idiin sheegayaa horena waan ahayn haddana ma noqonayo nin reer. higsiga wadani waxa weeye jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku waarta in la helo dad iyo dal midaysan siduu ka dhawaajiyay madaxweyne Daahir Yaale. barnaamijka siyaasiga ee xisbiga inkastoo heli doontaan insha Allah isagoo tifatiran hore loo soo bandhigay wuxuu ka kooban yahay 5 tiir oo aanu isnidhi malaha arkaan islaamka laga soo qaaday wadii dibadda lagu badbaadinayay. waa Idris Yahya, telefishinka caalamiga ee Somali News, magaalada Hargeysa.